بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا wararka Soomaalida ee caawa ee HBN qodobadaan idinkugu hayna waxa kamid ah Turkiga oo ku dhawaaqay xilliga uu Soomaaliya ka bilaabayo soo saaritaanka shidaalka madaxweynaha Somaliland oo shaaciyay in qodista shidaalka la bilaabayo Somaliland Puntland oo laga sameeyay ciidamo cusub maxay tahay hawsha ciidankan xog ayaanu idinkaga haynaa saraakiil ka socota booliiska واتلسك عيدمada Turkiga ee Soomaaliya oo koonfur galbeed kala hadlay amniga iyo dhismaha ciidamada iyo Djibouti oo soo iibsatay doomaha haga maraakiibta waaweyn dhamaan wararkan oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wararka Soomaalida ee HBN hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online baryahan ubadkaagu halkay baafinayeen oo baahi ay u qabeen ayaan soo bandhigayaa bisharada niga hooya oo diinta bilan iyo barashada qur'aankaba ku barbaaray carruurta hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyadda asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culuumta shareecada waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo ka mid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir whatsappka +252 633 145 153 soo dhawaada markale daawadayaal caawa waxaan ku hormari doonaa Turkiga ayaa waxa uu sheegay in uu bilaabayo qodista shidaalka Soomaaliya kadib markii dawladdu ay sheegtay in ay ku guuleysatay howlaha sahanka wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalka Turkiga Alparslan Barakhdar ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Turkiga uu qorsheynayo in uu bilaabo qodista shidaalka Soomaaliya sanadka soo socda kadib markii uu baarlamaanka Turkiga horgeeyay miisaaniyadda wasaaraddiisa ee sanadka 2026 wasiirku waxa uu sheegay in la dhameystiray sahano baaritaan farsamo ah oo lagu ogaanayo kheyraadka shidaalka kuwaasi oo laga sameeyay badda Soomaaliya isagoo tallaabadani ku tilmaamay mid cusub oo lagu xoojinayo iskaashiga dhinaca tamarta ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga waxaan dhameystirnay sahanadii baaritaanka farsamo ee laga sameeyay biyaha Soomaaliya waxaana hiigsanaynaa in qodista ugu horeysa ay dhacdo sanadka 2026 ayaa uu yiri wasiir Barakhdar sidoo kale wasiirku waxa uu baarlamaanka Turkiga u sheegay in sanadka 2025 oo kan ku jirnaa in la dhameystirayo 182 howlood oo qodis shidaal ah oo dhulka ah iyo 17 howlood oo badda ah halka haatan ay socdaan 48 qodis oo dhulka ah iyo 4 badeed hawshaasi ayaa sheegay in ay horseedeen ama howlahaasi in ay horseedeen sida uu sheegay in la helo keed cusub oo gaaraya 260 milyan oo fuusto oo shidaal ah talaabadan ayaa Soomaaliya waxay ka dhigaysaa dalalka mudnaanta gaarka ah ku leh siyaasadda tartanka ee Turkiga xilli dawladda federaalka Soomaaliya ay dadaal ugu jirto soo jiidashada maalgashi shisheeye iyo balaarinta kaabayaasha tamarta gudaha madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre ayaa horey u sheegay in wax soo saarka shidaalka dalka la filayo in uu bilowdo sanadka 2026 taas oo waafaqsan qorshaha cusub ee Turkigu ku dhawaaqay dhanka kalena madaxweynaha Somaliland ayaa waxa uu ku dhawaaqay waqtiga la bilaabayo qodista shidaalka Somaliland madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa waxa uu ku dhawaaqay in qodista shidaalka cayrin ee deegaanadooda ay si rasmi ah u bilaaban doonto sanadka 2027 iyadoo oo suurtagal ay tahay in hawshaasi ay horay u bilaabato sanadka 2026 oo kan ka horeeya haddii dadaalada la dardargeliyo hadalkan ayaa waxa uu ka jeediyay munaasabadda ee carwo lagu soo bandhigayay Somaliland arrimaha macdanta oo ka dhacday magaalada Hargeysa madaxweyne Cirro waxa uu sheegay in shacabka Somaliland muddo dheer sugayeen bilowga soo saaritaanka shidaalka waxaana uu yiri waxa shacbiga Somaliland ugu bishaareynaya in badan bay isweydiinayeen talo goorma shidaalkii Somaliland la soo saaraya waxaan ugu bishaareynaya in ugu dambeyn qodista shidaalku Somaliland oo bilaabmayo 2027 haddii ilaahay istakhirana uu ka soo horeynayaa wuxuu bilaabmayaa 2026
markana Puntland madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo xariga ka jaray maanta dhismaha xarunta taliska guud ee booliiska Puntland ayaa ku dhawaaqay go'aan adag oo meesha ka saaraya in ciidamo si gaar ah loo leexsado isaga oo mas'uuliyiinta ciidamada faray in iyagu mas'uul ay ka noqdaan dadkaasi ciidamada sube ee Puntland laga howlgeliyay oo gaaraya 500 askari oo si buuxda u qalabeysan ayaa waxa la sheegay in deegaanada Puntland ay ka howlgeli doonaan halka tira intaasi oo kalena ay tababar uga socdo kuliyada tababarada booliiska ee magaalada Carmo waxa uu sheegay madaxweynuhu in saraakiil iyo korneylo gaaraya 500 laga ruqsayay ciidamada kadib markii eedeymo loo jeediyay dhanka kale madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa cadeeyay in ciidamadani aysan ciidamo leexsan aysan mas'uuliyiinta Puntland ku dhaqmi karin isagoo isla markaasina sheegay in Puntland ay ilaalinayso cid kasta oo u baahata difaaca waxa uu tilmaamay in uusan samayn karin ciidan u gaar ah qofna talaabo uu ku sheegay mid hoos loogu dhigayo ee hubka faraha badan iyo in isbedel cusub la sameeyo runtii waxaan rajaynayaa inaynu yeelano ciidan bulshada oo u dhaxeeya qabaa'ilka u dhaxeeya xisbiyada u dhaxeeya ciidan dawladeed way waxaan rabnaa anagu dhiseen ciidan reereed ma aha ciidan kooxeed ma aha ma maqli doontaan ilaahay idankiis markaan xil ka tago ciidan la yiraahdo madaxweynaha wili daacad iyo halka jooga maalinna kama shaqeyn diyaarno ma ahay laakiin waxaan rabaa inaan ka tago ciidan Puntland oo awood leh kaasaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno marka dadka ku fakaraya oo dhaqan jiray weeye oo kalsooni darrada siyaasadeed ay keentay oo hadda aniga aan dhaliilin oo duruufihii jiray ay abuureen waxaan rabnaa inaan ka gudbno ciidamadan cusub ee Puntland oo lagu magacaabo SPU sida uu ka dhawaajiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo ah cutubka ilaalada gaarka ah ee booliiska Puntland ayaa waxa la sheegay in ay qayb ka noqon doonaan dadaalada lagu doonayo in lagu yareeyo hubka faraha badan iyo in sidoo kale amniga isbedel looga sameeyo deegaanada Puntland maadaama maamulku uu sheegay in guulo waaweyn uu ka gaaray dagaalada ka dhanka kooxda Daesh ee ka socda gobolka Bari wararka Turkiga ku saabsan haddaan dib ugu laabano taliska Turkiga ee Soomaaliya ayaa waxa maamulka koonfur galbeed oo kala hadlay howlaha amniga iyo dhismaha ciidamada maamulka koonfur galbeed madaxweynahooda Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagren oo maanta ku qaabilay magaalada Baydhabo wafdi uu hogaaminaya taliyaha kuliyada tababarada ciidamada Turkiga ee Turkisom Sarayagaas Sabahatiin ayaa waxa looga wada hadlay arrimo dhowr ah oo amniga dib u dhiska ciidamada iyo taageerada ay dalka siiyaan kulankan ayaa waxa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga dhinaca amniga tababarada iyo tayeenta ciidamada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala deegaanada koonfur galbeed shirka gaarka ah oo markii uu soo dhamaaday u dhaxeeyay madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta Turkiga ayaa waxa warbaahinta u aqriyay wasiirka amniga koonfur galbeed Xasan Cabdulqaadir taliyaha Turkisom generaalka iyo la taliyaal dhiniga amniga oo dawladda Soomaaliya iyo saraakiil kale oo Turki iyo Soomaali bale walina ka dhawaynay magaalada Baydhabo ujeedka guud iyo socdaan wali haytay in bal aan koor galaan xaaladda amni guud oo koonfur galbeed iyo waxyaabihii iyo niil qabada koraan in ciidankana dhiirigeliyaan howlgallada socda iyo magaalada Baydhabo amni shay iyo si guud dawladii iyo inshal warqaadan wali la kulmeena madaxweynaha dawladda koonfur galbeed mudane Cabdicasiis iyo saraakiishii dawladda koonfur galbeed guud ahaan la kulmeen walina haytay booqasho runtii taariikhi ah oo un ka dhawaayay janaanka maadaama markii koreeytay oo janaanka Turkisom uu sameeyay magaalada Baydhabo in habooqato hadhawaayana walina ku mahadnagnay si guud oo dawladdu ku mahadnagtay walaalaha Turkiga Turkigu waa mid kamid ah saaxiibada ugu weyn ee Soomaaliya ee dhanka ciidamada ka taageera ugu dambeyntiina Djibouti ayaa waxa ay soo iibsatay doomaha haga maraakiibta waaweyn hay'adda maamusha dekedaha iyo agaga xorta ee Djibouti ayaa waxa ay si rasmi ah u howlgelisay laba doon oo casri ah kuwaasi oo loogu talagalay hagidda iyo caawinta maraakiibta waaweyn ee ku soo xiranaya kana baxaya dekedaha dalka Djibouti
talabadan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo awoodda dekedaha iyo adkeynta doorka istaraatiijiyadeed ee Djibouti ee maranbiyoodka muhiimka ah ee Geeska Afrika. labada doon ee cusub oo magacyadooda lagu kala sheegay Faarax Xasan Raage iyo Saad Warsame Diiriye ayaa waxaa lagu maamusay shakhsiyaad door muuqda ka qaatay sida la tilmaamay horumarinta iyo maareynta dekedaha Djibouti. doonyahan ayaa waxay ka tirsan yihiin nooca TPP 68 waxaana si gaar ah loogu talagalay in ay si ammaan ah u hagaan maraakiibta waaweyn kuwaasi oo dhererkooda uu gaarayo 370 ilaa 390 mitir oo dherer ah qota dhererkooduna uu gaarayo dhulka hoose ama sagxadda hoose 18 mitir oo hoos ah. mas-uuliyiinta dekedaha ayaa waxa ay sheegeen in doonyahan cusub ay yihiin horumar weyn marka loo eego doonyihii hore ee keli ah caawin karay maraakiibta dhererkooda uu yahay 170 mitir. waxaa intaasi ay ku dareen in iibsashada labadani doon ay qayb ka tahay barnaamijka maalgashiga ee socday in ka badan 20 sano kaasi oo lagu bixiyay in ka badan 108 milyan oo dollar si loo horumariyo hagidda maraakiibta, amniga dekedaha iyo sidoo kale badbaadada guud ahaan ee gaadiidka badda. mid kasta oo kamid ah doonyahan cusub ayaa waxaa lagu soo iibiyey ku dhawaad 9.74 milyan oo dollarka Mareykanka, taasi oo muujinaysa dadaalka joogtada ah ee Djibouti ay ku doonayso in ay ku xoojiso booskeeda ah xarun muhiim ah oo saadka iyo maraakiibta ganacsiga ee gobolka. waayahay qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararkii Soomaalida caawa oo idinkaga imaanayay stuudiyaheena labaad ee HBN. wararkeenana waxaad kala socon kartaa bogaggeena kala duwan Facebook, YouTube, Twitter iyo Telegram iyo boggeena internetka ee hbnonlinetv.com. waa inoo kulan dambe intaan ku kulmi doono wararkan kuwa kan xiga sidaas iyo amaanaada.